abtirsiinimada Nabiga sallallahu alayhi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee waxa uu ku dhashay magaalada Maka sanadkii 570 ee milaadiga, sidoo kale loo yaqaan sanadkii maroodiga. Abtirsiinadiisa waxa ay gaaraysaa Nabi Ibraahim sallallahu alayhi wasallam, wuxuuna ka dhashay qabiilka Quraysh, gaar ahaan reer Bani Haashim. Magaciisa oo dhammaystiran waa Maxamed bin Cabdullah bin Cabdulmuttalib bin Haashim bin Cabdimanaaf bin Qusay bin Kilaab bin Murra bin Kacab bin Lu'ay bin Qaalib bin Fihri bin Maalik bin Nadar bin Kinaana bin Khusayma bin Mudarrib bin Ilyas bin Mudar bin Naasir bin Macad bin Cadnaan. Cadnaan waa awoowayaashiisa u dambeeyay ee loo yaqaanay abtirsimadiisa ee isku raacsan yahay. Nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu ahaa mid sharaf badan dadka, isagoo caan ku ahaa daacadnimo, cadaalad, daryeel, waxaana uu noqday rasuulka u dambeeyay ee la soo diro dhammaan bini'aadamka, isagoo lagu soo dejiyay kitaabka Quraanka ah ee Kariimka ah. Haddii aad ka heshay muuqaalkan, subscribe dheh channelka, sidoo kale videoga like noo saar. Aad iyo aad u mahadsantahay.